guddigan isku dhafka uu ka kala socdo xafiisyada ku bahoobay shaqo abuurka ee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa kulan la qaatay xubnaha shaqo abuurka u qaabilsan ee maamulka magaalada Wajaale. Mas'uuliyiinta maamulka magaalada Wajaale ayaana uga warbixiyay sida iskaashatooyinka shaqo abuurka uga faa'iideysteen, waxaana intaa kadib guddigan soo kormeereen shirkadihii shaqo abuurka loo sameeyay. wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa wax ka weydiinay kormeeradii maalmihii u dambeysay ay ku soo mareen qaar ka mid ah maamul magaalooyinka deegaanka. waxaan ku soconnaa xafiisyo isku tagay oo ah xafiisyada bahwadaagta ah ee ka shaqeeya shaqo abuurka. toddobaadkii hore ama 8 cishimkana soo dhaaftay waxaan ka soo shaqeynay Dhagaxbuur iyo Qabri Bayax. maanta ayaan markaa nimid Wajaale. shirkadaha halkan ka dhisani waa sida waxay leeyihiin shirkadiyan ku soo aragnay labada goobood ee kala soo sheegay. waxa aan runtii aan soo taabanay waxa weeye in dadkan shaqo abuurka waliba sanadkan 2012 ka si fiican loo abaabulay. marka guud ahaan waxyaabaha imika meesha ka jira waxa weeye dad ba is abaabulay sida warshadii imka shaamboodan soo marnay alxanlihi oo 2010 wali waxyaalan ku faraxsanay 2010 lacagteeda inta badan imka lamaba hadal qaadaba laakiin alxanlihi aan arkayna waa 2010 weeye. waxa jira meesha kala soo marnay farmasi baa jira lacagtii farmasiga waxay u goysay intay dhaafeen ba hadana clinic doctor bay soo kareysteen. marka waxyaalaha ku muujinaya inay tahay waad arkaysaa imka markii aynu qolada nadaafadda arkaynay lacagahooda inta isku geysteen ayay dawladdii hoose ee yacni maamulka magaalada Wajaalana ay baabuur u iibiyeen. hadda meelaha kale waxyaalaha dhibaato ka tagay baabuur la'aanta ayaa ku ka ahayd laakiin Wajaale macal baabuurkii u iibiyeen. marka si guud ahaan marka aan u soo bandhigo waxa weeye waa shaqo abuurku yacni meeshii loogu fiicnaa ayuu marayaa. xubnaha guddiga isku dhafka ee shaqo abuurka loo sameeyay ayaa ka hadlaya waxyaabihii wanaagsan ay ku soo arkeen shirkadaha shaqo abuurka muddadii ay kormeerkani ku jireen. anagu waxaan nahay team ka kooban 6 xafiis. waxaan soo kormeernay 3 maamul magaalo Dhagaxbuur, Qabri Bayax iyo maanta joogno Wajaale. xafiisaas waxay kala yihiin xafiiska madaxweynaha oo aan ka socdo, xafiiska sportiga, xafiiska tifeedka, xafiiska shaqo abuurka iyo xafiiska arrimaha haweenka iyo xafiiska Somali Microfinance. team noocaas nahay waxaan daba gelinay oo kormeerinay shaqo abuurka loo sameeyay maamul magaalooyinkaas dad ku nool laga soo bilaabo 2010 12 annagoo dadka u sheegaynay inay ahayn lacagtan lacag deeqa ay tahay lacag deyn oo la maahiyay lacagtiina soo celiyaan si dad kale ee mataqaanay bilaacamalka ayana bilaacamalka shaqo abuur loogu sameeyo. madaxa xafiiska maaliyadda ahna kusimaha maayirka maamulka magaalada Wajaale ayaa ka warbixinaya qaabka shaqo abuurka ay uga faa'iideysteen shirkaduhu. 2011kii oo la abuuray 33 shirkadood iyo 2012kii oo la abuuray iyadana 30 shirkadood waxay wax badan ka bedeshay qayb ka mid ah dhalinyartii magaalada shaqo abuur bay u sameysay dadkana badan iyadana shaqo abuur bay u sameysay. waxay wax ka bedeshay iyadana ganacsiga magaalada oo iyadana tartan iyo kor u qaad ay gelisay. marka guud ahaan marka la yiraahdo shaqo abuurka wuxuu wax badan ka bedelay sidoo ku socdana haddii san ama imika dhibaatada kaliya haysataa waxa weeye lacagta loo soo shubo dadka oo aad u yar iyo dadka iskaashatooyinka aan abuurnay oo kala badan. marka haddii labadaas la simo oo la kordhiyo lacagta shaqo abuurka waxaan aaminsanahay wax badan bay ka tari kartaa dadka shaqo abuur badan bay u sameyn kartaa dhalinyar badan oo maanta bilaa camala waxay kor u qaadaysaa oo kale iyadana magaalada iyo shaqadii magaalada dhex socotay dhamaanteed intii isbedelka ka dambeysay waxa weeye ilaa 6 meeyo la sameeyay shirkadood baa la sameeyay. marka inta u badan imika iskaashatooyinkina si fiican u shaqeeyaan. sidoo kale xubnaha shirkadaha ay ka faa'iideysta shaqo abuurka ayaa sheegay in kabitaan dhaqaale lagu sameeyay isbedelkii kadib diyaarna u yihiin lacagihii lagu maalgeliyay deynta ahaa inay iska soo celiyaan. waxaan sameynaa shaambooga dharka ee waaweyn isagoo yar 1 litir iyo 5 litir isagoo kaweelka oo dishwash amba kaweelka ka farxalka isagoona oo qacmaha lagu meereeyo tayda baasana sameynaa inkastoo aan packaging amba magacayga aan ku qorino mashiinadii aan haysan haddana laakiin kilo ayaan hoteelada u siinaa waxay iibsan karaya waxay kala iibsan karayna 5 kilo iyo waxay xilxidho kale ayaan ku siinaa. shaqadayda hadda noo fiican tahay inkastoo hadda kiimikaaladii inta waqtigan corona awgeed kiimikaaladii yar kala goyn arsamada ka kala go'an yihiin. wallahi isbedel aad u weyn baa ku yimid lama qiyaasi karo. hadda gaadiid maanu haysan hadda barisaa dambe waxaan ku tala jirnay inaan soo gashano bajaaj aan ku dhigno maadaama aanu haysan gaari weyn